Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Ruqiyya Abdi, and I would like to talk about a little bit about the peacetime emergency extension that our governor Tim Walz announced yesterday. And because there is some confusion about people and mistakenly are saying it's stay home extension, and the governor also stated today there is a difference. So I want to share that with you, and as always, and if you have a question, I am willing to answer. You can always ask me or put in my Facebook page or YouTube channel, but I am recording this for parents and so that they can understand. And so that, and I will also talk about, so this will be in Somali language, right? And I will also talk about a little bit about the little update and that happened yesterday, and then finally I want to talk about the distance learning and it's not homeschooling and online schooling, and I want to share about my homeschooling experience a little bit. And the reason I'm saying that, I am hearing most of my friend is saying, oh, homeschooling is difficult, we're doing homeschooling, and I would like to share with them that this is not definitely homeschooling, it's a little bit different. And so, and I will switch to Somali. And walaalayaal magacay waa Ruqiyya Abdi, walaashin Ruqiyya Abdi, waxaan rabaa inaan idin la wadaago and shalay and arin uu gobolka Minnesota governorkeeda ku dhawaaqay oo ah in peacetime emergency extension la sameeyay in la badiyay peacetimeka waqtiga uu ahaa. Dadka qaar ayaa marka waxay xoogaa isku yara qaldeen peacetimeka stay homekii in la badiyay. So waxaan rabaa marka backgroundiga inaan sheego intaas iyo little update iyo inaan la wadaago waxbarashadan laga dhigay guriga iyo waalidiinta sida xoogaa yar ugu wareersan yihiin. Waxaan rabaa inaan la wadaago aniga khibradeyda iyo waxaan ka soo maray homeschooling wax la dhaho iyo inay ka duwan tahay arintan homeschooling iyo online schooling ba, because dadka qaarkood hadda waxay leeyihiin homeschooling is difficult, wuu adag yahay. Qaar waxay leeyihiin online school waa arin cusub dadka hore u aqoonin. Homeschoolna ma aha, online schoolna ma aha. What's happening waa distance learning. Marka first waxaan rabaa peacetime extension inaan sheego. So waxaa jiro in uu governorka yiri peacetime ayaan extension ku sameynaya sababtoo ah shalay waxay ahayd bisha April 13 and so wuxuu dhahay ilaa May 13 ayaan muxuu ahaa extension sameeyay. So some people waxay dhaheen oh and May 13 ayaa stay home la sameeyay. That ma aha. Waxaan rabaa inaan idin sheego background little back inaan idin celiyo. And peacetime extension first waxaa la sameeyay March 13 oo governorka ku dhawaaqay. Peacetime extension marka waa special kind of special power camal waay. Okay, like you want swimming in a gashido kale, you have to have a life jacket, so and you can jump oo kale. So peacetime extension is like a jacket camal for the governor to jump in and do something. Maxay marka wax la sameeyay hadda marka March 13 markay ahayd bishii soo dhaafay ayuu dhahay peacetime extension. Why? Because ururka caafimaadka adduunka and WHO World Health Organization loo yaqaano ayaa waxay dhaheen cudurka COVID-19 and March 11 markay ahayd waxay dhaheen cudurka COVID-19 outbreak wuxuu yahay hadda pandemic. Maxaa la dhahaa outbreak? waxaa la dhahaa marka cudur uu soo shacbaxo asagoo la filanaynin. Cudurkii wuu soo shacbaxay, pandemic bay dhaheen. Pandemic waxa waaye markii wadan kale uu sii gudbo. Hadda meel kasta uu sii gudbo ilaa wadankeena Soomaaliya sii aaday waad maqlaysaan. Marka pandemic marka ay dhaheen March 11 March 13 na and peacetime ayuu governorka codsaday. Peacetime marka awood waxay u siinaysaa in uu sameeyo waxyaabo badan sida iskuulada kale inuu xiri karo. waana dhacday 2 days kadib announcement iyo hadana sameeyay iskuulka la xirayo. Powerkaas marka waxay ka imaatay peacetimeki taas iyo in national guide la activate garay ciidanka dalka in ma arkino diyaar laga dhigo camal hadii meel wax loo baahdo. Kuwaasna mar hore la sameyn jiray marka ama daad oo kale haduu webi ka dhacayo oo kale and weather problem hadii jirto, laakiin right now waxa uu activate garay although national guide wax kale ay sameyn karaan wuxuu activate gareeyay
arrimahan in loo isticmaalo مثلا somewhere in register mask yaalaan maskyo badan yaalaan way keenayaan dadka way caawinayaan something like that camal waxaa kaloo jirto restaurantyadii iyo ku dhawaaqay inuu xiray so intaas marka more than 30 days ma isticmaali kara awooddaas marka 30 days marka seelay dhamaanaysay yesterday markay dhamaanaysay danta waxay ku khasabtay marka inuu one more time extension sameeyo okay now I'm going to stop here hadda waa stop gareyn waxaan go back ku noqonayaa stay home order waxa March 15 wuxuu ku dhawaaqay governorka in March 18 until 27 guriga wax lagu baray ciyaalka distance learning in ma arkino la bilaabi doono preparation in la galaa ciyaalka guriga wax ku dhiganayaan 27 ilaa April 10 wuxuu yiri order stay home hala sameeyo guriga la joogaya April 10 markay ahayd wuxuu yiri stay home ki ilaa May 4 uu noqonaya and then schoolkiina waxa laga dhigay ilaa May 4 bishan hadda dhalanayso afarteeda so but waa May 4 now waa May 13 the reason April 13 ki 30 days ki peace time ki expire ka noqonay so like today iyo tomorrow kale hadii waxaan ma arkino too much si noqdaan and executive order kiis inuu isticmaalo you know power jacket ka example kan ku sameynay peace time waa inuu haysto in order to do or executive orders inuu sameeyo I think that clear in idin noqonayso so the main reason maxaa waaye main reason waxaa waaye to save Minnesota people dadka Minnesota in la caawiyo saas uu sameynaya iyo in ma arkino strategy la yimaado social distancing iyo dadka sidee u dhaqmayaan xagee u socdaan hadda stay home waxa la dheereeyay markii la arkay dadka inay wabiyada agtooda iskaga damaashaadayaan hadda مثلا peace time kii haystaa some people la arkaya oo wedding party amal sameynaya ama some then order loo sameyn karaa ama police ku amri karaa that's clear and another thing waxaan rabaa arinta kale metro mobility waxaa jiro gaari la dhaho oo baska aan ahayn laakiin metro mobility oo dadka waayeelka iyo dadka curyaanka qaadi jiray hadda marka waxay sameyn jireen food and shelterka dadka ugu baahan wax ayay free ugu qaadi jireen yesterday marka waxay ku dhawaaqeen metro mobility healthcare workerska qof walba oo isbitaalka shaqeeya maadaama hadda xaalka uu isbedelay qof walba oo isbitaalka shaqeeyo waxa ay siinayaan free ride metro mobility waa wici kartaa their website their phone number waa amar la siiyay waay khalaas wax yaro governorka ka hadlay inay taas la xiriirtaa laga yaabaa wuxuu yiri dadkii magaalada ama gobolka way ka yaraadeen oo banaanka lama baxay stay home-kii way fiicnaadeen baawurka shilalkii ayaa aad u batay marka waxaa xoogaa u maleeyay in dadka markay wadayaan inay ama leeyihiin booliiska ma joogo meelo qaarkoodna waxaa lagu qabtay oo la iska sii daayay dhaqaatiir iyo nurse schoolki iyo shaqadii u cararayaan so free ride ku siinaya waxaa kaloo jirto shelter for COVID-19 positive ina iri arintaasi arin oo aniga hadda 100% aan sharix karo ma aha laakiin it looks like something good for especially for us anaga communitygeena waxa waaye shelter dadka homelesska waana federal emergency ayaan waxaa la yiri siinayso detailka we need to find out insha Allah waxa waaye مثلا small apartment yal degan yahay kale qof baa wuxuu noqday positive and they don't have place or isolation ku sameeyeen meel ay galaan ma haystaan ama qof waa homeless ayaga marka meel u provide gareynayo isolation lagu sameeyo that's that waan ka baxaya intaas distance learning marka aan soo bilaabo hello distance learning yes and wuu dhacay laakiin homeschooling ma aha sababta aan idin kugu sheegayo waxa waaye ana homeschooling soo sameeyay distance learning-ka shuruudo uu wato hadda homeschooling-kana ma wato online school-kana ma wato aniga homeschooling waan soo sameeyay homeschooling waxa waaye marka adiga cunugaada guriga ku barays responsible ka naqanaysid and there are so many stuff that you have to do hadda waxaan rabaa inaan idin tusiyo this paper for example here I hope you will see here this and waxa waaye Minneapolis Public Schools paper kan waxaan ka helay 2009 11 years before they send me I was homeschooling 1 year they're telling me like you know information
So you have to request, you have to register if you want to do homeschool. You can't say I'm homeschooling because you have to tell the state. Same like you're doing charter school, like same rule Amarisan. You have to report, you have to do something. And also, testing, everything you're responsible. Yeah. It's not funny. Homeschooling, it's not funny. So this is the paper, and waxay dhahayaan, and this waxa waaye and homeschooling waxa lagu soo diray and report application for aid and service to non-public students. So this is the notes I got from Minneapolis Public Schools 11 years before. So they are telling me information. So aniga the first year homeschool markaan bilaabay, I took my child from school. I want my child to get the best education, right? Like in Anakushe, it was very difficult the first year. I was going crazy. Oh, how am I gonna do this? Aniga, I was just talking to myself because I haven't seen my community doing, right? And some of my close friends, they said, you're doing a dangerous work. And that's what I was okay. But I grew up, I learned, like I became strong. Some of my story, and this is my book, the book that I wrote, and Better Parenting, you can find over here. And I wouldn't write my experience if I didn't do. I isku day a lot of stuff in Asame. I'm forgetting myself to speak Somali. And waxaan Homeschoolers Alliance and organization la dhaho aan register gareeyay here. Homeschoolers Alliance member ka noqday so they can help me. Everything I have to purchase, yeah? Inaan soo gato waay. And bugaagti, computerki, everything. Marka waxaan ku fikiray, oh my god, and inaan the best, my dream space, best space, computer, and like I have to get this and this and this in order to get the, do the homeschooling the best. It didn't happen. That was just a dream. But alhamdulillah rabbil alamin, my kids, they learned it, yeah? Library, that was our second. That's how the library helped me a lot, really, alhamdulillah. Now the library is closed, I know, and I will share tips inshallah ta'ala. And so that is homeschooling. After that, I switched to online schooling. I wanted to understand the difference between the three. Online, Hawaii, they have their own teachers. They send their own and curriculum and books and computers, everything, whatever you need. You have to ask. Nobody's gonna give you something. I want to tell you this secret, yeah. Everything is available. You have to ask. Why not talk, Garisa? Ask again and again. So you have it, Ilma, online. They have their own teacher, but I'm the coach. I do the attendance, everything, but the test and everything like MCA and we now the school, and which is St. Paul, the center of the school. So, but when I was homeschooling, I have to purchase the test, and they have to do it here, and I was like on top of them, very tense. Like in alhamdulillah, the second year I was like, oh whatever, it's gonna work. I learned it, they learned it, and everything was amazing. What is this distance learning? Distance learning, two things. All materials you have to get, and printed or computer. I know and family badana jiro or device computer late ka yahay. Inshallah ta'ala you will get it, and we are doing whatever we can aniga and school ka whatever, lakin perfect scenario ma dhacay hadda because and cabsiya jirto. So my main point waxa waaye distance learning alaabta ayaga kusoo diray, and they're doing that, iyo cuntadan ayaga kusoo diray. And waxaa kaloo jirta the second thing, macalinka oo home school, and a home room teacher ka oo cunuga ku qoran license every day inuu contact la sameeyo. So this is very important. Aniga a lot of parents la hadlay, some of them sheekada xogaa way fahmeen, qaarna way ku waraysan yihiin. Waxa waaye and ask the schedule. You have to log in. For example, when you have a device, for example, you have to log in from this time to this time. Ask when. Intaasna 7 oo kale, 7:30 ilaa 3. Some parents are telling me it's okay, but watch, sit down, help as you can. You are not teacher.
you're just helping supervising. Okay, that's arrintaas inaa fahantiin idinka rabaa. haddii computer weli aadan helin ha aqriyaan waxooda saacadahooda qor intaas iyo intaasay fadhiyaan, no problem, wherever they sit, any corner clean ugu dhig, it's okay, no problem. arrinta kale oo aan idin rabo inaan idin sheego waxaa waaye, some people waxay dhahayaan I did this one schedule can waa kana this schedule waa exercise, that schedule is learning this. Don't think super parent, super mom is super dad has ka dhigina. Everything is gonna be okay. That's not gonna work. Adiga, you need self-care in a semisan, because really and your energy will be drained. Adinka waxaa more focus garaysan and building relationship with your child is very important this time. Xataa ilmaha waxay marayaan emotion badan ku jiro hadda, ma yaqaan si uu interact garayaan, waxbarashada iyadoo emotion tahay waxaa kasii daran waxaan dhacayo ay kasii cabsanayaan. marka dadaala insha Allah taala, and we will see you next. Assalamu alaikum.